madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlayay magaciisa ka dawladda iyo ka shacbiga Soomaaliland waxa uu munaasabada sanadka cusub ee Islaamka 1443 ee hijriga ah awgii ugu hambaliyay bogaadin iyo ducana u diray guud ahaan shucuurta Islaamka gaar ahaan shacbiga Soomaaliland meel kasto ay joogaan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu hambaliyo taal la mid u diray wadamada shucuurta Islaamka ee dacalada dunida ku nool isagoo u taaniyadeeyay curashada sanadka cusub ee Islaamka oo ku beegan oo curanaya maalinta bariya ee Isniina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu Ilaahay uga bariyay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shucuurta Islaamka guud ahaanba in sanadkiisa ay ku gaaraan bashbash barwaaqo iyo horumar inta bugtana uu eebo xanuunka ka dulqaado inta caafimaadka qabtana uu raxmaanku u siyaadiyo inta dhimatana eebe uu naxariistii janno firdawsa ka waraabiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu shucuurta Islaamka u rajeeyay in sanadkan cusub uu la kowsado nabadgeliyo xasilooni iyo horumar ay ku tallaabsadaan dadka muslimiinta ah ee daafaha kala duwan ee adduunyada ku nool